dhibka ka dhacay degmada Gabdhoole oo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan Jubbaland danab iyo ciidamo kale jooga boorka kuwaas oo gubay guriyihii iyo hantidii meesha ka xirxirina dadkii deganaa arrinkaasi waxa weeyaan wuxuu noqday arrin in la hadda la garanaynin wax uu sababsaday iyo meel yani looga yimi dowladdii ama maamulkii ayuu dalka maamulayay shacabku maamulayay canshuurta ka qaadayay ilaalinayay in ay degma kun degmo dhexdooda ku jirto keligeed la gubo afarta gees ba degmooyin joogaan oo haddii xataa cid lagu dhaanaynay kuwa ay degan yihiin ba la garanay cidaha raadinay ay joogaan oo waxba aan laga gubo in la iska gubo bilaa sabab hub looguma deegaanla kama dhicin waxa loo gubay ilaa hadda ma garanayno sababta loo gubana ma garan karno waxaan intaa u aragnaa inay tahay maagid oo ay daba socoto arrimihii hore ee ahaa xilalkii ugu horreeyay wasiirka madaxtooyada Axmed Cabdiraxmaan Xaaji Xasan markii dambena uu soo sharaxay xildhibaannimada golaha sanadka iyo maxaa raadayay arrimo kala fara badan oo reerku ku soo noqnoqday waxaa intaa raacda oo badan in ay yimaadaan dhulal ama boosas dhulal dadka barta ku yaala magaalada bartakeeda oo caan oo guri ka dhisan yahay in la yiraahdo annaga iska waxaas waxaan u aragnaa inay tahay dandaansi inay tahay qabowga dowladnimada dadnimada iyo wanaagga qabiilahaan aan la nimid iyo walaalnimada aan la nimid iyo horumarka aan la nimid iyo ganacsiga iyo maxaa raadaaye qabowga iyo walaalnimada inaan eednay macnaha la doonayo jawaabta ay tahay waxa dil waxna dil waan la doonayn horumar dowladnimo sharaf minna waxaan u sheegaynaa madaxda u sare madaxweyne Axmed Maxamed Islaam u sareeyo baarlamaanka wasiirada qolooyinka amniga quseeya dhammaan in meesha dad gurigiisa lagu gubay maanta iminkana hooganayaan halkaa dhibaato wax kasbeen aan garanaynin aan doonayn si degdeg ah loo soo jawaabo meesha caalamka dowladaha federaalka u sheegay waxaan kaloo Soomaalidu sheegaynaa degan Jubbaland arrinkan soo noqonaya qaladka ah inuu yahay mid beegsi ama reera intaba u dhacayo ma garanaysaa markaas aan darteed waxaan mar labaad mar saddexaad u sheegaynaa maamulka iyo ummadda Soomaaliyeed qaladkan uu soo noqday mar walbana imaanayo beesha gelin uu gaar ku yahay garanaysaa ugaaska inta la soo waxa la yiri shil ma qaba kartid si bareera marka waxa